وعن أولاد سنداوية كسر ولا ورئيس جار والله يلان دون حضيها قلعة دحى أحمد الكعسل كسر ومدن القرح يميليا mahadsantihiin adiga iyo bahda midiga qorraxay waan idin soo dhaweynaa mahadsantihiin waa tahay bal ugu horeyn inta waraysiga madalagelin bal waxaad warbixin guud iga siisaa xaaladda ururka iyo meesha ay marayso bismillaahir rahmaanir rahiim aad baad mahadsantihiin waxaan si guud ugu mahadcelinayaa midiyaha jooxo gaar ahaan midiga qorraxay oo runtii muddooyinkan dambe iyo intii ururku uu shaqaynayayba kaalin libaax ka qaatay halganka Ogaadeniya mar walbana aan moodo inay ku howlan yihiin shaqada ururka iyo bulshada aad baan idinka mahadcelinayaa runtii idinka iyo inta kale ee warbaahinta ee ku abtirsada ururka intaa ka soo koob run ahaantii xaaladda hadda ururka uu ku jiro aad baan u fiicannahay runtii ururka xaalad fiican buu ku jiraa xaaladiisii halgan buu ku jiraa ururku saad la socotaanba muddo dheer halgan buu kusoo jiray hubaysan heshiiskii Itoobiya iyo ONLF wixii ka dambeeyayna wuxuu bilaabay halgan aan hubaysnayn oo ma garanaysaa si nabadgelyo ah uu uga dhaqdhaqaaqayo waddanka Ogaadeniya muddadii uu ururku soo galay waddanka heshiiska nabadgelyo uu qaatay wuxuu isu diyaariyay markii u horeysay kalfadhigii golaha dhexe ee shirka Qabri Dahar si guul uu ku soo dhamaaday shirka Qabri Dahar kulankii golaha dhexe waxaa ka soo baxay in shirweyne la qabto shirweynihii ururka afraad ee goday lagu qabtay isagana runtii si guul uu ku soo dhamaaday intaa wixii ka dambeysay ururku khilaafaad baa jiray gudaha ururka oo markaa dee loo arkayay oo kala aragti duwanaansho xagga ururka iyo qaabka loo howlgalayo arrinta iyada mudday socotay ururkana dabacooyinkiisa waxaa ka mid ah inuu sameeyo si sulaxa iyo si walaaltinimo xubnaha ururka ee halgamahaya inay isu fahmaan si dhimrin aana wax loo wada qaadaa dhigo muddo dheer baa oo muddo hal sanaba ku dhow hadda arrinta iyada baa lagu mashquulsanaa ururka howlihiisii uu qabsan lahaa iyo barnaamijyadiisii uu fulin lahaa intaba arrimahaas caqabad ku ahaa muddo kadib markii dhinac walba laga eegay dadka khilaafaadka waday ee ururka markaa khilaafaadka ku dhex waday waxaa caddaatay xubnahaasi xilligaas inay si kale u shaqaynayaan xogo badan markii la ogaaday ururku go'aankiisii xagga sharciga mar haddii uu ku guuldaraystay inuu nidaamkii in la isfahmo ahaa in ma garanaysa la isqanciyo ahaa in sulax wax lagu dhameeyo ahaa haddii taasi suuroobi weyday ururku wuxuu dib u milicsaday shuruucdiisii uu ku shaqayn jiray iyo xeerarkiisii oo shakhsi kasta oo dembiga ururka iyo dembi ka gala ama nidaamka ururka meel kaga dhaca shuruucda loo adeegsanayo ee sharciga u lahaa ururka ayaa dib loo fiiriyey kadib xubnihii noocaas ahaa waxaad moodaa markaa in xalka laga gaadhay noqotay in xeerka ururka loo cuskado sidaas ayayna ururka bannaanka kaga mareen intaa wixii ka dambeysay ururku wuxuu isu diyaariyey si uu howlihiisii kooxdaasi ay ka curyaaminaysay muddada dheer ay la horfadhiday inuu dhaqaajiyo waxaa la diyaariyey in gobollada la aado in la howlgalo howlo badan kadib waxaa hadda u dambeysay ururku waxaa jirtaa in doorasho ay Itoobiya ku dhawaaqday in la qaban doono ururku doorashadii ugu horeysay ee uu gala ma aha 93 buu ururku doorashadiisii ugu horeysay uu ka galay waddanka Ogaadeniya wuxuuna ku guuleystay 84% waa 93
dowladdiina isagaa soo dhisay. baarlamaankii ugu horreysay ee ururka uu fadhiistayna 3 qodob baa lagu ansixiyey. calankan maamulku uu hadda leeyahay, magaca waddanka oo Soomaali State iyo caasimadii oo markaa goday loo doortay. baarlamaankii ugu horreysay ururka uu ku guuleystay. marka isagoo taa ka duulahayo oo doorashooyinkaas soo qabtay ururku, khibradna u leh run ahaantii qaabka doorashooyinka iyo nidaamkaas, xilligan xaaliga ururku wuxuu ku wajahan yahay doorasho inuu galo. waata xogay intaan ka noqon qodobka hawlaha ururka xagee idin marayaan abaabulkii ururka gobolada ka waday iyo xagee marayaan iyagu? abaabaladii u horreeyey ururku si fiican buu u qabtay. waxaa ka dambeeyey xilligan xaaliga in istaabiyadii sidii doorashooyinka loo qaban lahaa oo kala horreeyaa jira. bishan hadda aynu ku jirno 5teedii ilaa 6deedii ilaa 7deedii waxaa loo kala howlgalay gobollada. waxaana lagu soo xulahayay xildhibaanadii ama musharaxiintii ka qaybgeli lahay doorashada. waxaa loo kala baxay 11 gobol ee uu ka kooban yahay Somali State, Soomaalida Ogaadeniya, Harar iyo Dirdhaba. waa 13 gobol weey. 13kaa gobol baa si toosa looga howlgalay xulistii musharaxiinta. isla markaana ururka waxaa dabeecad u ah oo dabeecadiisu ay tahay la tashi shacbigiisa inuu la tashado. arrimaha noocaas waxaa lagala tashanayay sidii loo xuli lahaa xildhibaanada shacbiga reer Ogaadeniya, odayaasha, cuqaasha, waxgaradka, dhalinyarada, hooyooyinka, intaasaa lala tashanayay. gobol walba wufuudii u baxday ay kala tashanayeen yaa idin noqonaya musharaxiin xagga xisbiga ONLF, taladiina ka dhiibtay. run ahaantii halkaan markaan marayno odayaasha la weydiinayay bal ka tala dhiibta ururka ciddii musharax ka noqon lahayd, ka tala dhiibta, aad bay u soo dhaweynayeen bulshada. yacni caade ma ahayn ama xisbiga ONLF axsaabtii kale ee ka duwan caade uma ahayn inay dadka wax weydiiyaan oo dadka la tashi la sameeyaan. waxaanaan samaynaynaa maxaa idan kala quman mayna la tashan jirin. marka waxay aad u soo dhaweeyeen oo maqsuud ugu noqdeen la tashigii lagala sameynayay xulista xildhibaanada. dadkii matali lahaa inay iyagu soo hindisaan oo ay tala ka keenaan. aad bay ugu bogeen. innagana waxaan isku buunbuuninayna ma ahayn, waa ereyadeennii ahaa midnimo, mintid, isku tashiga marka bulshada iyo ururkuba way ka dhaxaysaa. aad bay u soo dhaweeyeen. waxaa ka mid ah ogaasyada qayb ka mid oon la kulmay waxay dhaheen xisbigii BB tusaale ahaan waxbay xuleen, waxba mayna noo sheegin. dada iyagu keeneen unbuu ahaa. laakiin sidan aad hadda idinku wax noogu soo bandhigaysaan waaba cajiib bay dhaheen. waa arrin aad loogu farxo. taana waxaa weeye waa dabeecooyinka ururka iyo halganka qaabka uu wado, oo halganku inuu shacab yahay taas xulistii hore iyo bandhigii hore ee bulshada loo bandhigay musharaxiinta inay ka tala bixiyaan bay ahayd. waana lagu soo guulaystay runtii howlgalkaa hore. wuxuu ka fulay 13 gobolba, 11 gobol, Harar iyo Dirdhaba intaba uu ka fulay. waxaa haddana isla markaaba haddana waxaa la gudagalay in lasoo diiwaangeliyo xubnihii lasoo xulay ee musharaxiinta ahaa. isdiiwaangelintii baa bilaabatay. waqtiguna qariib buu iska ahaa. 5 beri yaa la qabtay markii u horreysay. run ahaantii waqtigii baa cidhiidhi noqday oo bulsho intaa la-eg iyo dadka ka imanaya iyo dadkeennoo run ahaantii waxoogaa muddooyinkan aan u baranin in wax la xulo oo ma garanaysaa waxani uu ku cusub yahay, taladuna ay yar baahayso, yay cidhiidhi noqotay. isla markaana haddana waxaa qoladan boordiga ay ku dareen 4 beri oo dambe. 4tii beri baa
gobollada loo baxay. Run ahaantii diiwaangelinta gobolladu meelana si fiican bay u dhaceen oo si fiican baa loo diiwaangeliyey, meelana si toosa markii b ay xubnahoodii diiwaangeliyeen iyo xafiisyadii xidheen iyagoo ka hordegahaya in la diiwaangeliyo xubnaha ONLF. arrintaana sababtu waxaa weeye oo meesha ka maqan oo sharci darraa in xisbi loolan ku jira inuu isagu wax diiwaangeliyo oo asagu qorshaha isagiiba qorshihii uu wato oo kombiyuutarradii ay wataan oo iyagu dadka diiwaangelinayaan. arrintaana arrin saxa maaha. dhinaca doorashooyinka waa inay xisbiyadu ka madax bannaan yihiin arrimaha adeega. arrinta xafiis xiritaanka iyo carqaladaha xubnaha ururka ONLF lagu sameeyey ma jiraan wax dacwada ama ribooda u gudbiseen xafiiska boordarka? aad baad u mahadsan tahay. markii howlgalkaasi uu socday, hogaaminta ururku meel kasta, gobol kasta iyo goob kastaba riboodka isdhaafsanayeen say wax u socdaan, caqabadaha meeshay ka jiraan, meesha ma garanaysaa ee la joojiyey in la diiwaangeliyo xubnaha, meesha uu magacyo ama istaba mareen ama si kale wax u habsaameen, waxoo dhan riboodka waa la iswada gaadhsiiyey. riboodkiina waa la gudbiyey. laba cabasho labadaba xubnihii ururka in la hor istaagay, hor istaag cad ay ku sameeyeen xisbigan b oo dhinaca diiwaangelinta, iyo isla markaana inay b iyadu shaqadiiba wadato, iyadu gacanta kula jirto. labada cabashaba way jiraan, kor bay jiraan.